السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي سو dhawaada meel kasta aad joogtaan halkaan naga daawanaysaan waa Anifaal Cabdi. Haddii ay tahay markii ugu horeysay aad na soo booqato fadlan subscribe dheh gambaleelkana furo like noo saar commentiguna waa dhiirigelin hanaga ilaawin sheerta. Sheekadu waxa ay inoo mareysay Haaruun oo la yaabay qaabka ay ugu jawaabtay hodan oo sii wadata hadalkeedii ayaa waxa ay weydiisay su'aal yaab lahayd oo ay ku tiri ka waran haddii qoraxda oo zaa'id ah aad hesho hoos aad ka gasho maxaad samayn lahayd? Haaruun aan moodid in aanu waxba fahmin ayaa ugu jawaabay markiiba waa aan kaga gamban lahaa balse waa maxay micnaha su'aasha? Hodan ayaa waxa ay ku tiri haddaba ana waxaan ahay hooskaas ee ka waran haddii aan xiriirkeena ka dhigano mid jacayl sidee u aragtaa? Waayo maalintii aan ku bartay ilaa hadda waxa aan dareemayaa dareen aanan weligay dareemin. Haaruun ayaa markiiba bilaabay in uu ka fikiro su'aasha isaga oo ka fiirinaya meelo kala duwan. Ugu dambeyntii waa uu ka aqbalay. Halkaa ayaa uu ka bilowday jacaylkoodii. Markay sheekaysanayeen bishii koowaad ee xiriirkooda iyo bishii labaad oo ay guud ahaan wada socdeen xiriirkooda, Hodan ayaa maalin maalmaha ka mid ah iyaga oo sheekaysanaya waxa ay weydiisay su'aal ay ku cabiraysay dareenkiisa iyo inta ay le'eg tahay kalsoonidiisa. Waxa ay ku tiri ka waran markii aan kulanno haddii aan noqon waayo dooqaaga aad jeceshahay in aad nolosha la qaybsato? Haaruun ayaa ugu jawaabay jawaab ay ku dheehan tahay kalsooni oo waxa uu ku yiri muhiim ma ahan wajiga quruxda badan ama qof leh jir wanaagsan, balse muhiimadu waa dabeecadda wanaagsan iyo qalbiga saafiga ah. Adna intaa qani baa ka tahay. Intaas kadib Hodan waxa ay siisay farxad ka badan iyo kalsooni zaa'id ah. Markaas kadib Hodan waxa ay bilowday in ay caawiso saaxiibkeed iyada oo bishii lacagta ay hesho wax uga soo diri jirtay si uu ugu fusho howlihiisa. Waayo waxa ay ogeyd in uu la noolaa abtigii iyo hooyadii, xaaladooda dhaqaalena uu yahay mid hooseeya, wadankana aysan jirin meel laga shaqaysto. Sidaas darteed waxa ay go'aansatay in ay u soo dirto lacag dhan $50, markii dambena gaarsiisay 70. Haaruun lacagtaas waxa uu ku fushan jiray danihiisa gaarka ah, waliba si zaa'id ah ayuu ugu faani jiray in uu yahay nasiibkii adduunka haysta hooskiisa. Markii uu socday xiriirkoodu in badan midba midka kale la qaadan jiray waqtigiisa, waliba labadooda waxa ay ilaaween in ay asxaabtooda kale la hadlaan waayo xiisahooda jacaylka ayaa ahaa mid zaa'id ah. Maalintii dambe ayaa Hodan waxa ay u sheegtay in bisha 7 sanadkan ay helayso fasaxa, sidaas darteed ay doonayso in ay Muqdisho dartiis u timaado si ay ula kulanto jacaylkeeda. Waxa ayna u soo dirtay dhambaal ay ku cabirayso dareenkeeda, ballanna ay la galayso. Sidaan ayna tiri sida tan: lamaanihii isxushee dadka iska doortay lama waayo balaayo iyo shaydaan kala geeya. Inta baahi kuu qabo kalgacaylka diyaar u ahay, naftu heegan kuu tahay. Bishaaradii axdigeena bishiina 7 wax baajiye ka dhowr. Haaruun oo ahaa mid aan ka yaraysanin ayaa ugu jawaabay dhambaal kale oo qiimo leh: boqoradii haweenkee baholyowga aan qabo in aad tahay mid bi'isiyo bogsi laga rajeeyay waa bannaan, waan ka dhowrayaa wax baajiya ballanteena. Intaas kadib markii uu soo dhawaaday safarkii ay Hodan ku imaan lahayd Muqdisho ayaa hal mar waxaa soo baxay balaayadii ay ka cabsanaysay Hodan.
halkaas haynoo joogto sheekadana intaan qaybta dambe ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo